waxaynu maanta u fadhinaa insha allahu tacaala muxaadaro uu ciwaankeedu yahay soomaalidu waxay u dhaxaysaa rajo iyo dhib. waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد، الصومال آلام وآمال درسك كان ولا ليال سيدا معوانك كم وغطا وحكو سابسيسية هاي مجتمع الصوماليات أما برشد الصوماليات دبتا هاي سطا هي الرجاء للرجين هي مستقبلك أو كوسا ليسان وحلو باهيين لقبطه. صوماليا أدي عد أجنبي runtii lagala hadlayo mala taariikh badan iyo wax badan in looga warramaa bay u baahnaan lahaayeen, laakiin maadaama dadkaan la hadlaya uu Soomaali yahay waxaan filayaa wax badan in lagu og yahay ama si aniga layga aqoon badan yahay. Soomaaliya oo soo martay tajaarib kala gedisan intii u dambeysay haddaynu soo qabanno ahdi isticmaariya oo reer galbeedku ay gumaysanayaan soo martay, xornimo doon ka dambeeyay soo martay, tajribo dimuqraadiya ku salaysan soo martay lixdanaadkii, thawrad ama revolution kacaankii Soomaaliyada soo martay, jabhada ka dambeeyeen qabiilla ku salaysan oo iyana dhowr iyo 10 sannadood ka soo talinayay, maxaakim islaamiya haddana ay qaybo badan oo waddan ka mida qabsadeen ka soo taliyeen, haddana nidaam isticmaari oo jadiida gashay oo Ethiopia oo ka mida Afrika duwalka wax isticmaarsada bale ka qayb galay isticmaarkii 1884kii shirkii Berlin lagu qabanayay ee Afrika lagu qaybsanayay Ethiopia dadkii ka qayb galay bay ahayd. dowlad mustacmir oo gabowday haatanna new world order-ka uu Maraykanku ka talinayo oo qaab gumaysi oo cusub ah imbaraatoriyada ballaadhan ee Maraykanka ee loo baahnaa ama la rabay inay dunida ka taliso, iyadoo maantana mustacmarka jadiidka ah uu garab siinayo. runtiina xaqiiqo aad looga murugooda ah ay haddana isticmaar cusub Soomaaliya gacanteeda ku dhacday oo in ay qori ugu taliso in ay qalin ugu taliso. dhan waloo dacal kasta Soomaaliya ka mid ah maanta amarkeedu yahay mid fudud, si fududna uga soconaya, ama xabad ha ku socodsiisa ama waraaq ay qorto iyo diblomaasi yar ay soo dirta ha ku socdo. waxaan odhan karaa waa taxta al-isticmaar. wadcigaasi aalaamta ama dhibta ku sugan waa runtii wadci aan la sifayn karin. dhibaatooyinka mujtamacaasi Soomaaliyeed haysato oo aniga aragtidayda ugu horeeya aljahl bixaqaa'iq diin wa bilxayaa. mujtamaca waxyaabaha ugu badan aan u arkayo haystaa uu yahay jaahilnimo ka haysata diintii ay rumaysnaayeen xaqaa'iq badan oo ay leedahay, waayo siyaabaha qaarkood looma dhaqmeen haddii xaqaa'iqda aynu sheegaynee diinigaa si fiican loo fahamsan yahay. nolosha guud ahaan baan leenahay way ka dhacsan yihiin oo jahla kaga sugan. xataa tacliimkii isticmaarku uu keenay aan odhan karno 20 sannadood buu dib u sii dhacay oo waa sii lumay. waa mujtamaca dhibaatooyinka haysata qadaayaadka daakhiliga bay ka mid tahay. waxaa ka mid ah furqada iyo tashatudka, burburkan iyo kala duruga kan iyo ishaysiga kan oo magaalo yaroo kastoo maanta waddanka Soomaaliyeed ku taalla ta ku xigta inay ka goodaabay jeceshahay ama ka durugto inaanay waxba la wadaagin. burburku xad buu gaadhsiisayay tacasubaadka qabaliga oo qabyaaladan loo tacasubayo aad dib ugu soo noolaatay. wadci hayru caadiyana runtii gashay.
xad uu gaadhsiisan yahay reerka Soomaaliyeed inuu ku qanci karo reerka kale si hagardaamo loo gaadhsiiyo haddii gaal la heli karo in la adeegsado ma aha reerka Soomaaliyeed suu isagu wax u qabsado woogi isaga inaan kani waxba u qabanaynin laakiin waxa uu rabaa ka ku xiga si hagardaamo loo gaadhsiiyo buu gaalka u adeegsanaya ila hada alxad ayuu joogaa qofka Soomaaliga ah aad moodo inuu rumaysan yahay dad badan oo ka midi noloshuba inaanay suurtagal ahayn haddaanu ximaayo qabaliyo helin reer haddaanu hoos gelin ay fududaatay divide and rule in lagula dhaqmo oo mabda'i fircawn markuu rabay dulmigiisii kama dambaysta inuu sameeyo ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa waja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan min dadkii wuxuu ka dhigay kooxaba ilaahay yiri dabeetana koox ka mid u gumaysanaya koox kalena kor baa loo yara qaadaya waa falsafadii uu fircawn wax ku gumaysan jiray waa falsafadii isticmaaradii ka dambeeyay divide and rule ay ku gumaysan jireen ummad lama gumaysan karo in iyada la jijabiyo mooyaane waa inaad iyada burburisaa oo dabeetana marka aad burburiso dacaladeeda yar qaybana aad kor u qaadaa si ay ku taageeraan ama aad saga dhigto inaad wax siinayso qaybana marka aad tuntaa si ay u duloobaan oo cagtaada ay u hoos geli karaan qabaa'ilka Soomaaliyeed waxay noqdeen marka waxa ugu fudud ee cid kastoo mustacmar iyo adeegsan karto in Cabdalla Xasan iyo dagaaladiisii baa loo adeegsaday kuwa ka dambeeya loo adeegsaday dawladii Soomaaliyeed iyo burburkeedii baa loo adeegsaday maanta iyo nolosha ku noolyiin baa loo adeegsanaya just what divide and rule qaybi dabeetana burburi marka aad burburiso kolba qayb ku tumo natiijadii ka dhalatay muuqataana waxa weeyaan in mujtamac fawdawi uu soo baxo bulsho fawdada ama anarkiga nidaam la'aanta kala daadsanidu uu salka yahay waa wax xidhiidha oo ay leedahay jirin kala daadsanidaasi waa fi kulli shay ma aha meel qura markaad ka qiimayso mararka qaarkood waxaad soconaysaa mala wuxuu nabadgalayba way yaryihiin wax kasta way kala daadsan yihiin tacliin caafimaad idaarad maamul aqoon wax kastoo aad soo qabato waxaad arkaysaa isagoo filiq uu ka tira batay intaasi waa wadcigooda gudaha suura kooban haddaan ka bixiyo oo ay iga wada aqoon badantihiin wadcigooda khaarijigiina wuxuu yahay inaanay haysanin cid muciin ah oo dabadeed oo u gargaaraysa nidaamka isticmaariga ee Maraykanka ee imbaraatoriyadda Maraykanka ee cusub ee dunida ku tala jirtay inay gumaysato waxaad moodaa inay Soomaalidu aanay gargaar ka helin ay ka heshay bam iyo garnayl iyo qumbulad iyo wax lagu garaaco dad masaakiin oo xoolo raacda waan cidnaba ogeyn meel gawaana iskaga nool aan duniba xidhiidh la lahayn in B52 iyo wax la mid ah lagu tumo oo lagu garaaco inaanu jirin nidaamkii aqtaabta ama dacalada badan dunida lahaan jiray qolo marka laga yar xanaaqo qolo kale loo xanaaqi jiray nin qori uu saytareeyo isagu dadka uu ka taliyo waxay noqotay Soomaaliya wadciga khaarijiga marka la eego meel ka mid ah dunida meelaha nafaayaadka dunida lagu aaso sumaha dunida ka soo hadhiya qashinkeeda shirkadka maafiyaadka caalamiga meelaha ay u baac mushtargeeyaan ee markaas si loogu aaso ama xeebahooda lagu daadiyo ama gobolada qaar ha lagu aaso waxay noqotay Soomaaliya meel hantideeda bad iyo bariya wuxuu doonaba ha noqdee tuuga iyo booba lagu qaado wax la boobo oo xoog lagaga qaado oo maraakiib rarato iyo wax la xado oo tuuga lagu xado loola dhaqmo waxay Soomaaliya joogtaa wadci taliska xaqiiqiga ee wadanka uu ka jira uu yahay isticmaalka marka laga yimaado NGO wax la yiraahdo ama NGO-yada caalamiga UNICEF UNICA waxa la sheegay uniga ah noqdaan ama NGO yaroo loo kale oo yana kuwa ka sii hoos shaqeeya ha noqdaan wadciga mujtamaca caafimaadka tacliinta dhaqaalaha wax kasta waxa maamula haddii bakeri la rabo in kor loo qaado
ka tuulada jooga waxa odhanaya NGO-yada inoogu yeedha dabeetana 5 NGO baa loo imanaya waxa la leeyahay waxaasaanu u baahanay waxaasaa naga jabay waxaas baasaa noqday waxa baasaa noqday dowladda xaqiiqiga ee ka jirta meesha waa NGO meesha doonta tag ee waddanka ka mid ah oo iyana ahdaaftooda iska wata yani waxyaabaha NGO-ga markaad aragto qaabka u dhaqmaya waxaa la odhanayaa booliya carruurta laga tallaalaya booliyuun baa ka socda bal booliya aan dhammaanayn arag oo maalin walba 900 oo qof oo shaqaalihii gelayaan shaqaalaha booliyada tallaala ma taqaanaan waa kuwa hawdka ka yimi nin hawdka ka yimi oo maanta magaalada soo galay oo soo shaxataga ama ciidoonay mararkiisa barito inta loo xidhay mara yaro cadoor korosale waa $5 baan maalintii shaqaysanaya dadkan tallaalaya indhahayga saaray yani mid ay baadiye intuu ka yimi weligii meel caafimaad lagu hayo daayaan weligii wax qorin caafimaadka kaalayaan waxna qorin waxna aqrinin oo inta mara yaro cad loo geliyay tuurta xambaarsan oo le booliyaan tallaalaya oday miskiina inta loo tago oo 2 carruur ka jiifta ama 2 kanaaca ka hayso ay leeyihiin kuwa caafimaadka qaba soo dareer kuwaas tallaalo isna leh waar kuwani waa caafimaad qabana kuwan baa sakaraade mid kiniina ama mid aspiriina ama wuxuun iga siiya leh ayana leeyahay may waxa ma sidna anaga shaqadaydu waxa weeyaan kuwa caafimaadka qabaanu tallaalaynaa keen odayga ama galgalanaya ama carruurtii badgalgalanayso booliya laga tallaalaya la leeyahay mashaariic la tantahi inteeda badan yaanay wax faa'iido ku jirin waa jiraan NGO-yada mashruuc faa'iido leh مثلا EU do kale mashruuciyahay wadooyinka dib loo hagaajinayo waxa